My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. Kani wa Obama wuxuu ka faalloonayaa duruufihii qalafsanaa uu soo maray xilliguu yaraa iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa. Of difficulty, hope in the face of uncertainty. wuxuu ku taamayaa duruufahaasi in ay bareen ujeeddada nolosha. dadku waxay ku tilmaamaan ruux ku dayasho mudan. waxa uu ahaa yaraantiisii mid hami weyn aaminsanaa qiimaha naftiisa. abwaan qoraa Qaalib. Very much, everybody. God bless you.